oo bismillaahir rahmaanir rahiim mar dhawaan soo galay waxaan way ugu cusub yihiin kii horan maalo aadama garanayo laakiin haddan soo noqday weligeena Facebook live soo ma galin laakiin danta ay keentay maanta marba danta ku keentaa meel Soomaaliya dadkayga la dhameeyay xasuuq baa lagu sameeyay dad Soomaaliya ayaa la xasuuqaya anigu meesha share iyo like toona ma rabo laakiin codkayga inay Soomaali weyn dhageystaan un baan meesha u soo galay iyo dhibaatada nagu dhacday iyo dhibaatada na haysata dadkayga la dhameynaya 4 sano dib nagu socotay 3 sano ayaa hadda dib nagu socota Soomaali weynay shanta Soomaali baa la hadlaya dadkaygii baa la dhameeyay anigu gabar Soomaaliyaan ahay laakiin nin walba qabiil buu ka dhashay gabar Ciisaana dadkaygii baa Anfar Tigray iyo Amxaar buu dhameynaya dad Soomaaliya laga gowracaya Soomaaliya waana la dhameeyay Soomaalida kilinka joogtaan la hadlaya maanta Ciise waa Soomaali Ciise dhulka kama iman sidaan aniguba Soomaaliya ugu soo dhashay Muqdisho ugu soo dhashay Soomaali aanu ahay ayuu Ciise Soomaali u yahay Ciise waa la dhameeyay Ciise waana la gumaaday dhul baana la rabaa in la ka qaato waana la gumaaday dad masaakiin oo la gumaaday xoolo dhaqato ah hooyo oday gabar waa la gowracay tolkay waa la gowracay gacan cadow baa i gowracaysa waa Soomaaliya ummadda islaamka ahay bishan Ramadaanka soo socota ee qayr kale ayaa dhiigayagu qubanaya ilaahayow na kala reeb ummadda islaamkan maanta u soo dacwoonaya ummadda islaamka muslimka ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed meeshay joogto Cadayti Cundhufo iyo Garbaciis dadkii jooga waa la dhameeyay Cadayti dadkii waa la gowracay Soomaaliya hana loo kaco Soomaaliya hana la caawiyo dhiig joojin wax walbaan u baahanahay maanta nin walba waa markiisa maanta Ciise saarantahay Ciisena waa qof dad Soomaali waa Soomaali baan nahay war af Soomaaliga ku hadla war idinku dhiiga war idinku dada ya waligay meelaha ma soo galin aaliyadan laakiin qof dadkiisii la gumaadaya ma waxbaa noo haray alla ma waxbaa noo haray meesha sida anagu nahay dad ogaan lahaydeen iyo sida naloo gumaaday walaalahaya wayna soo caawiyeen ciidanka new booliska noolaada de inta dhimanna in nala soo dhamaystiro Soomaalidoo dhan inay noo soo dhamaystirto maanta walaalahaya wayna garab taagan yihiin dagaalka way nagula jiraan laakiin markii hore la dhigtay marka ilaahay waxaan ka baryayaa inaan garab helno inaan hiil helno hiilkii oo walaal isku lahaa hiilka oo ni Soomaaliya ku lahaa dhiig bixin dhiig joojin wax walba inaan helno ayaan idinka codsanaynaa Soomaaliya maanta waa la sitaa Ciise waa la sitaa Anfar bana nagumaadaysa Anfar kaliya maahineed xulufadii Tigrayga ayaa rabta inay anaga dhulkayga intay qaadato Soomaaliya dhan dhul Soomaali galbeed oo dhulkeeda ka qaadato ya marka maanta hal isku hiilkiina hal arko hana loo hiiliyo Ciise waa Soomaali dhulka kama iman anigu sida Soomaaliyeed kugula hadlaya arkaysiin afka aan ku hadlaya oo Soomaali u yahay ayuu Ciise wada Soomaaliya ya waana qabiil waxa kan la idin sheegay Ciise iyo Anfar baa isdilaya waa qabiilka baa la soo hormarinaya Soomaaliya Anfar baa isdilaysa miyaa la oranaya ya aniga xagaan ku soo dhashay magaalada Muqdisho ku dhashay naag reer Muqdisho aan ahay laakiin dhiigeedu uu Ciise yahay ya gumaad baana lagu hayaa gumaad Soomaali galbeed baa gumaad lagu hayaa Cadayti Cundhufo Garbaciis
iyo meel ayna weligeed canfar lugta ayna lahaan ayaa maanta la siiyey cabdi ilay baana siiyey cabdi ilay baa siiyey laakiin maanta cagjar waxaan ka codsanayaa sidii ciidanka noogu soo diray inuu noogu dhammaystiro in ma bishaa rabadaan ay soo socoto dadkayga ay ku soomaan cibaadadoodana ay gutaan ilaahay baan ka baryayaa inay nacaawiyaan walaalahayn ogaadeen siday maanta noo garab joogaan inay hiil iyo hoob inay ka soo kacaan goday ka soo kacaan ee meel allaale meeshay joogaan ka soo kacaan ogaadeenku waa inay nacaawiyaan soomaalidoo dhan oo degan ayaan la hadlayaa soomaalida kilinka ku nool ogaadeen kaliya kuma nool 100 Soomaali baa ku nool kumanaan Soomaaliya ku nool war heedaha haddii maanta city la soo dhaafo xagee loo soo socda labada dhinac baa lidinku Muqdisho lidinku shubayaa iyo waxa lidinku shubayaa Hargeysa xagee lidin wada dhulkiinii weeyaa iyo xuduudka la soo gal xuduudka yaa iskale xuduudka calanka ka saaran waa calanka Soomaalida city yayta war city yayta war city yayta war city yayta aniga aaladan maxaa ikeena maanta maxaa ikeena dhibka iyo dilka iyo dagaalka iyo waxa la igu sameeyay xumaanta la igu sameeyay dadka iyaga la gowrac gabdhaha iyaga la kufsaday la gowracay ya ma meel haraana ka soo maanta soo istaagi jira Facebook wax sida waxaan qaba ilaahay baa og waxa annaga ay qabna ilaahay baa og ciise maanta wuxuu qaba ilaahay ciise wuxuu qaba ilaahay baa og war waxaan idin leeyahay walaalahayow haddaad goday shaah ku cabaysiin oo maqaayad aad fadhidiin haddii aad fadhidiin jigjiga aad fadhidiin aad maqaayad shaah ku cabaysiin walaalihiin u gurmada war walaalihiin u gudbada war bil Ramadaan baa soo socday war Soomaalinimadii aawa war Soomaalinimada ma sidana ahay war wallaahi billaahi tallahi inaan gabar ogaadeen agteeda lagu dilay waan dhalay ogaadeenka calooshayda ku qaada anaa badiyay ogaadeen ya wiilashayda kamida gabdhahayga kamida waad noo soo hiiliseen hiilkiina nabada tusa hiilkiina nabada tusa walaalahay wax ka celiya ciise wax ka celiya dadkayga wax ka celiya talkay wax ka celiya ilaahay ha laga baqo Soomaaliya bil Ramadaan baa soo socotay dhiig joojin wax walba raashin biyo haraad gaajo wax walba lagu haysto magaalooyin bay ku xiran yihiin cadow waa dusha ka joog ilaahay ha laga baqo Soomaaliya ilaahay ha laga baqo baaqaas Soomaali qof kastoo Soomaaliya ku socda qof kastoo Soomaaliya ma afka Soomaaliga ku hadlo ku socda qof kastoo afka Soomaaliya ku hadlo reerka kan waxay leeyihiin muslim baan haween shahaadana shahaadkooda maxay shahaadaan bil Ramadaan qeyr ma soo socotay waa kuwa dhamaynaya tolkay ya maxaa qof muslim oo shahaadana shahaadaan bil Ramadaan soo socotay cibaadada markay u tashan lahayd raashinkeeda meel dhigan lahayd maanta dagaalka ku jirta ya ilaahay ka baqa Soomaaliya noo gargaara oo noo soo duceeya ducada nagu soo kaba inta noo gargaari karinay ducada nagu soo kaba in ilaahay gacanti sareysan siiyo dadku waa Soomaali dadku waa muslim hooya la gumaaday gabdha la gowracay dhallaanka iyaga baa raba hadda in la gowraco anfar baan heshay culufa ay wadato dawladda Itoobiya nagu fasaxday meeshaan anigu waxba kama rabo lacag kama rabo shilin kama rabo sheer kama rabo codkayga in ummadda islaamka ee muslimka ah Soomaalida leh ee dhiigga leh anigu aan ka dhashay inay maqlaan baan rabaa dhibta taala garbaciisi cadayd iyo cundufo dhibaatada taala ee 4 sano 3 sano la gumaadaya maanta inaad nala ogaatiin baan rabnaa maanta inaad noo hiilisiin ayaan rabnaa Soomaali waa la kala xirxiray shan meelood baa naloo kala xirxiray shantii meelood loo kala xirna qolaa meel lagu goostay meel dad masaakiina ciise waa dad nasaba ciise waa dad Soomaalida jecel ciise waa dad nabadda jecel waa dad xishooda waa dad aamusan wallaahi billaahi ilaahay noo soo gargaar maalinka arkaya ya waa ku salaamay naadir maalinka والله waxay keenay meeshan waxay keenay maligay mashidan aaladan tan kaamira qaatay isma soo hoos dhig laakiin maanta dhiiga igu jira iyo dadka idin lagu maaday yaamahan calaal xumadan hays iyo dibkaan ognahay iyo inta rafaadan oo ku sameeyay ummadda muslimka nala arag meeshan cibaadaysan lahayn ayaan maanta ku
waxaan la garanay aalad baasaan la garanayn kowdhe laakiin waa laga bixi doonaa wixii meeshaan i keena in ilaahay maanta ugu dambeeyaan inay maanta ugu dambayso ilaahay ka baryaya rabbigay raxmaanka aan dhibkaan mar dambe oonan ugu dhicin oon gargaar helno oon dhiig joojin helno oon hiil helno oo caawinaad helno oo garabka iyaga walaalaha ay istaagaan inta innaa lilaahi wa innaa raajicuun inta dhimatana allah naxariisto inta walaalaha iyo new booliska ka dhimatana allah naxariisto waa xaq ay leeyihiin waa dhulkoodii cid kama leh aniga jigjiga qof igama laha sitina iyaga qof kama laha waa dhulkoodii calankoodii yaa ka taagan waa ciidoodii ay ilaahay siiyey waa dhulka soomaaliyeed lama kala xigo laakiin markuu cadaabaha yimaadna waa ka kala xignaa canfar waan ka xignaa dhulkan tigray waan ka xignaa oromo waan ka xignaa wixii itoobiya degan oo dhanna waan ka xignaa soomaali baa dhulka iskale annaga iskale ilaahaa lagu abuuray qof kastana meel buu ku abuuray halkaa ciise ilaahay ku abuuray laakiin ciise waa soomaali yaa walaalayaalow dadka muslimka dadka soomaalida la hadlayaa maanta inay indhahooda halkaa indhahooda xaggaa u soo jeediyaan inta facebook ka hadashaan u sheegaya inay soo galaan ay walaalahood ku caawiyaan afkooda ku caawiyaan taageero u fidiyaan ay u sheegaan adduunweynahana u sheegaan in dad halkaa ciise la yiraahdo lagu gumaaday ciisena waa soomaali dad soomaaliya lagu gumaaday in ciise la yiraahdo ma arrinta haddii ciise la yiraahdo way yaraanaysaa laakiin waa dad soomaaliya inay canfar ay soo urursatay tigreegii intii hartay ee lagu qaraabanaya ee la rabo soomaali dhulkooda in laga qaato ayaa halkaas dagaal xoog la ayaa ka dhacay dadkii waa la gumaaday waad la socoteen ayaamahan maantana tii ugu xumayd baa dhacday dad markaygii baa la gowracay saasaa loo gowraca go walaashii la gowraca maanta maxaa kursiga soo fadhiisiyey walaasha iyo walaalka iyo dadka iyo eheladaydii baa la gowraca maanta maxaa halkaa isoo dhiga kaamirana kama xishoonaya meeshaa doontiina geysta laakiin anigu codkayga waa sheeganaya waa ilaahayo meeshaa doontiin igu tuura laakiin aniga waxaan rabaa inaan danta aan leeyahay maanta aan idinka soo gaaro hal qofna ii fiirsan soo galooy ma oranaya xitaa waan soo boos garaynaya halkaa ka arka aaladan kuma shaqaysanayo danna ka melihi aniga ilaahay baa iga israaqaya meelo kale laakiin waxaan idiin sheegayaa aniga codkaangi waxaan ku gudbinayaa inay canfare ay dulmi ku socoto dhulayna lahayn ay qaadanayso xaqana ilaahay tuso xaqa ilaahay inuu tuso dhulkan adduunyada waaba la socdaaye waaba dad muslim laba go' baaba la iska gelinayaaye ya labadii go' oo cadcadaabaaba ku sugaysa canfar qurun leeyay ya canfar quruntoy injin weynay ya labadii go' oo cadcad baaba lagaa gelinayaaye waxbaa maxaa dhulkaad sii badsanaysa adduunyadii baaba sii gadoomayse dadkan weligaa la deganayd ee meel wal jabuutina la degantaa halkan la degantaa saas ugu gaaraysa aad gowracaysa ninkaa walaalkii gowracaysa maku dhaafayaa weli kuma dhaafayno waana taariikh meel noogu qoran injireeyay hal maalin aan kugu dhammayn karnaa waad ogta canfaray qurun wey nacalad baa ku taalla canfar iyo wixii la socda iyo wixii la qaraabanaya iyo wixii xune wax la wado nacalatullah caleeg baan leenahay sida yuhuudan nacaladaynaa qurunkiis iyo qashaabirka waan kala haraynaa ilaahayna kala reebaya ilaahay weyna waaxidkaana kala reebaya waana kala haraynaa gacanta guushan annagaa qaadayna waana taa ku eryanay laakiin in yar baad meel ku xiratay intaad meesha ku xiratay ilaahay baa kaa badbaadinaya xoogga iyagaana ku soo furanayna qurun yahay qurumadooda dadka soomaalida la gumaadayo dhiigga iyagaa socda bilaha qayrkaa soo socda dhiigga iyagaa socda muxuu ku socdaa dhiigaya gardarru ku socdaa gardarro intaasoo biloodna lagu haya gardarro cad ayaa dad masaakiin oo xoolo dhaqataa lagu gumaadaya gardarro cad dhul la iska boobaya xilligan xagee lagu arka adduunyadan gabaabsiga ah ummad muslim sheeganays meeqa sana kumanaan sanan meesha isla deganay ma maanta harta dhulka iyaga anagoona la qaadatin qurunto afrax canfar qurunto dhulka iyagana ma qaadanaysa walaa tigraygiina walaa waxayna soomaalida galbeeday dadka meesha degan ee soomaaliga hala siiyo dadkaas hala siiyo dareemihiinu ha kacaan dhiig ha loo shubo wax walba ha loo shubo xoolo ha la siiyo biyo ha la siiyo raashin ha la siiyo wax walba ha la siiyo maanta alle soomaalidu isku baahanta maanta alle isku baahan yahay nin walbo maantaad u baahanta dhulkan adaa la xigkaama xigto
city Somali male ciise waa Somali ya anigu sida Somali kula hadlayo isaguna Somali u yahay waa walaalihi waa dadkiini waa dhulkiini waa halkiini ya ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay gacanta guusha la nasiyo ilaahay waxaan ka baryayaa in gabadha dhudubkeena adkay ilaahay wuxuu ka baryayaa in darbi bira ilaahay nagu xiro ilaahay waxaan ka baryayaa inay dhibaatadana soo afjarmato ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka xaqooda ilaahay tus shartay wadaana ilaahay ku celiyo dagaalkan dagaal maxay ku faa'iidayaan dagaal quruntoy maxaad ku faa'iidayaan Tigray baa dhulka ka soo qaatay dhulka ka soo qaatay arrintaana dhulka iga qaadato dhulka sadiiga qaada waa iska lahay intuu nin ciise noolyahay intuu nin ciise golxabkiisa sito intuu nin ciise maradii gaabnaa sito naag ciisaana ay majkuulay tahay wallahi inaadan qaadaynin dhulka yaga inaadan qaadaynin waan dib inta hartay baa u joogaysa kumanaan u socon dagaalka kan maanta hadduu aqbalaysa inaad ku guulaysanayso kumanaan buu socon kumanaan u socon inta la nool yahay waa dhaxal waa la iska sii dhaxal generation buu dhulka soo dhicinaya ogaada inaan lagu kala baxayn inaan dhulka yaga la qaadanay inuu ciise Soomaali yahay lagu eeganayo canfar ya ka soo kacay jijiga ka soo kacay goday ka soo kacay shin meesha joogtiin ka soo kaca mar meesha joogtiin ka soo kaca dhagax buur ka soo bax dhagax buur ka soo baxa meel walbuu joogaan ogaadeen ha ka soo bax inta kala Soomaalida meesha degada buursiga meesha degan la hadlaya isaaq baa degan gada buursi baa degan qabiil kasta Soomaali hawiya degan kulligii waa inaad u hiilsin ciise kulligii waa walaalihiin waa ciise qabiil weeye kaliya laakiin waa nin Soomaali dadka ciise waa dad Soomaaliya maan ilaahay laga baqay dadka ciise lagu maadayo gabdhaha la gowracay dadka ciise waa Soomaali dadka ciise waa Soomaali dhagiina gash sid aniga gabar ciise habiyar Soomaali hay balahay maanta Soomaali mihi Soomaaliyad sami waa iyagana waa Soomaali dadka ciise loo kaco sidii waa dhul Soomaaliyeed laga maxigo ninka Muqdisho jooga ninka Djibouti jooga ninka Hargeysa jooga ninka ma Allah la meeshu jooga ninka gaalkacyo jooga iyo kan jooga Garowe waa iska leeyahay sid waa dhul Soomaaliyeed calamadan la ku kala xirxiray ma arkin in caalamka xunkaana la ku kala xirxiray meel la ku kala dhigay waa siyaasad ay leeyihiin dadka reer galbeedka iyo Mareykanka ay wataan waxba naga magalin aniga waxa dhulkan dhul Soomaaliyeed weeye xuduudada soo gudba ka celsha canfar ka celsha Tigray Soomaaliya ka celsha walaalihiin dadka ciise waa dad sharaf la shalayta gogol bay idin dhigay Soomaali weyn bay gogol u dhigay Soomaali weyn bay madaxweyne u sameeyeen ya waa kuwan dadka ciise waa dadka reer Djibouti Soomaali weyn bay gogol u dhigeen maanta iyaga lagu maadaya madaxweyne idin saare kuwa Muqdisho jooga la hadlayaan meesha ku soo dhash madaxweyne idin sameeyay dad Djibouti jeceshiin oo ciise nima ku jeceshiin sidii kuwa joogana waa dad ciise waa dad Soomaaliya ilaahay laga boqol la isku yiliyo meediyaha la soo wada galo hal cambaaray adduun weynaha la tuso hadalku waa hiile maanta noo hiiliya aalada weligay ma iman maanta ay ugu horeyso wax ay keenana wallahi inaan inta cuni karin inaan joog karin inaan seexan karin dadkayga lagu maadaya ilaahay laga boqo bil Ramadaan weeye bil Ramadaan ba soo socod ilaahay laga boqo dadka baa la dhameeyo walaalahay baa la dhameeyo caawa ma ogina waxay ku nool yihiin inta harta warka ma hay meel xisaab male daawo xisaab male dhakhtar male daawo male biyo male cunto male haraad Allah nagayna gaartay ilaahu noo gargaar ilaahuna kala reeb aaladan intaasaan ku joojinaya baaq waan idin soo diray waxba kama rabo lacag kama rabo waxba ii sheer gareeya in ilaahay ummadda muslimka Soomaalida maqasho ay na caawiyaan